السلام عليكم كسور دوادة شاليال حلقتيني أفرادي تحنيه دولك سونتا isbaada oo hore u soo sheegnay inuu dhanna ganacsade weyn ka ahaa dhanna ragii xisbiga Talyaaniga u talinayay uu kamid ahaa ayaa Sebri wuxuu waraysi u bixiyay koodii bishii koowaad 2000 oo ku sheegay in isbaada uu kor ka xukumayay nin hantiilaha oo u dhashay Mareykanka asalkiisuna yahay Talyaani oo la raahdo Nicholas ninkan ayaa waxa uu degan yahay Monaco shirkadana waxa uu ku leeyahay Talyaaniga Switzerland Airline ayaa la sheegay inuu kamid ahaa dadkii lugta weyn ku lahaa mashruuca Urano isagoo maafiyada caalamkana la lahaa xiriir wacan waxa kale oo ninkan iyo isbaada in badan ka shaqaysan jireen qaaradda Latin America gaar ahaan wadamada Haiti iyo Santo Domingo oo ay muddo badan qashinka u dhoofinayeen halkaas oo Zebrina goobjoog ka ahaa sanadii 1989 ayaa waxa kooxda curyaamiyay isbaada oo geeriyooday deedna Zebri oo halkaas ku agoomoobay ayaa waxa hawsha la wareegay hantiilihii reer Mareykan ee Talyaaniga ah ee Nicholas waxa kale oo maamulka sare ee kooxda kamid ahaa Guado Guerrilla oo ka masuul ahaa Polisiaro waa saddex aqoonsilihii aynu hore u soo sheegnay iyo shirkad Talyaani ah oo la oran jiray Odino Felbergi oo maraakiibta dhista Zebri wuxuu booskiisii hore ee isbaada Nicholas uu qandaraas kaga qaatay qashinka ciidamada badda ee Mareykanka oo intuu wadanka Talyaaniga keeno hadana u sii rari jiray Yurubta bari siiba xuduudaha u dhaxeeya Poland iyo Ruushka arintaas sidoo kale waxa cadeysay maxkamad ku taala Torino iyo waliba Nicholas laftiisa oo qirtay inuu Mareykanka ka soo qaato qandaraasyo taasoo halkii tan qashin ah uu ku dhoofo $1 iyadoo waliba ay konteerarada ku alxamayaan markabka waxaana ilaa hadda si fiican u cadeyn kaalinta hay'adaha sirdoonka Talyaaniga iyo waliba cutubyo ciidanka qalabka sida ka tirsan oo markasta saraakiil iyo dad masuul ah ba fadhiyaan miis kasta oo looga doodo mashruuca Urano ama lagu qorfeeyo arintan inuu ka hadlo Mr. Serbi waa ka gaabsaday mar telefishinka Al Jazeera wareysanayay inuu magacaabo saraakiishaas isagoo u baqay naftiisa salaakiisin tan kaliya ee la hubo Sebrina tabinaya ayaa ah in siyaasiyiinta ugu waaweyn uguna awoodda badnaa u sareeyay dalka Talyaaniga kana mid ahaa xisbigii hanti wadaaga ee PSI ay ku lug lahaayeen mashruucan mashaariicda ugu cad ee qorshahan ka fuliyay Soomaaliya ee waqtigii dawladda Maxamed Siyaad Barre waxa kamid ah dhisida wadada u dhaxaysa Boosaaso ilaa Garowe oo ku beegan dhamaadkii sideedamaadkii oo ah xilligii qorshaha la hirgeliyay sida ay qareen Serbi iyo rag kale oo u shaqayn jiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga oo mashaariicdan hoos tagto ayaa markii wadada la dhisay waxa loo adeegsaday in lagu aaso qashinkaas sidoo kale nin la yiraahdo Franco Oliva oo ahaa sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga ugu shaqaynayay xamar intii u dhaxaysay 1986 ilaa 1990 markaas oo ahaa maareeyaha guud ee mashaariicda kaalmaha Talyaaniga ee Soomaaliya wuxuu cadeeyay Mr. Oliva in intii u dhaxaysay 1986 ilaa 88 uu magaalada xamar kula kulmay Guado Guerrilla oo ah saddex aqoonsilihii aan soo sheegnay inuu halkaas u joogo uuna sugayo maraakiib xambaarsan qashinka hadhaaga ee nuclearka sidoo kale barnaamijka kaalmada dibadda ee Talyaanigu waxa uu ku lug lahaa hubka Soomaaliya ku qulqulaya xilligii dagaalkii sokeeye waxa midaasna loo adeegsaday sida Oliva ka dhawaajiyay maraakiibtii barnaamijkaasi uu siiyay Soomaaliya inay u adeegsato kalluumaysiga casriga ah maraakiibtaas oo magacyadooda qormooyinkii qaybtii koobaad aynu ku soo sheegnay maraakiibtaas oo intii ay dhacday dawladii Jaale Maxamed Siyaad Barre ahaa kuwa uu ku shaqaysto ninka la dhaho Engineer Saciid Muuye ayaa sida la tuhunsan yahay loo adeegsan jiray daaburidda hubka sharci darrada ah iyo qashinka inkastoo ninkani beeniyay midaas sida walaalkiiba uu beeniyay Amiralayo Saciid Marino oo ahaa taliyihii ciidanka badda ee Soomaaliya oo isagu ilaa waagaas bar wax laga weydiiyay aag 2000 sheegay in maraakiibtaasi ilaa iyo hadda u adeegto qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed nolol maalmeed wadaagsanna ay ka helaan ku dhawaad 2000 oo qoys oo Soomaaliyeed haddaba kadib burburkii dawladii Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa dhammaan dadkii hawlahan qashinka daawulida ku shaqo lahaa isugu habar waadeen sidii dardargelin loogu sameyn lahaa mashaariicda sunta siiba Urano loogana hirgelin lahaa dalka Soomaaliya warqad ay wada saxiixeen Guerrilla Ozia Morachino ayna ku saxiixeen Nairobi 24 June 1992 ayaa laga akhriyay in ay wada hadal la lahaayeen dad Soomaaliyeed si ay ugu helaan dhul ay qashinkaas ku aasaan sidoo kale waqtigii ku beenayd aagii 2000 ayuu Morachino qiray mar uu wargeyska Familka Cristiana u waramayay una sheegay in heshiiskaasi dhacay inkastoo aanu hawshaas la fulin buu yiri mar uu dalka Talyaaniga u yimid in maxkamadda Roma wax ka weydiiso dilkiisa xufeedii ka tirsanay TV-ga
RAI ee magaceedu ahaa Aleria Albi. Moragino ayaa ahaa nin aad ugu dhex milmay arrimaha Soomaaliya tan iyo 2008-yadii markaasoo uu ka soo kici tamay magaalada Geneva oo asal ahaan ka soo jeedo halkaas oo uu ku lahaa shirkado baabuurta xamuulka ah. kadib waa ay kacday shirkadii iyadoo maxkamaduhuna ay weli ku daba jiraan. kadib xamar ayuu soo galay. markuu soo degay waxa uu bilaabay arrimo ku saabsan darawalnimo, dilaalnimo iyo arrimo la xiriira gawaadhida xamuulka ah. intaas kadib wuxuu fursad shaqo ka helay mashaariicda kaalmada Talyaaniga ah ee dibadda oo aynu hore u soo sheegnay inuu qandaraasyo badan ka helay. markii qashinka loo dhoofinayay Nugaal iyo Bari isaguna uu xamar ku soo degay ayaa wax laga weydiiyay. waxa uu yidhi aniga koontareeda daabuladeeda oo aan baa shaqo ku lahaa Garowe ilaa Boosaaso. sidoo kale ninkan Soomaalida aad buu u xiriir wanaagsan ula lahaa oo u dhex galay xaaskiisuna waxay ahayd Soomaaliyeed. kadib markii dambe arrimahaas waa uu ka dalacay oo wuxuu bilaabay inuu si gaar ah ula shaqeeyo hay'adaha kala duwan ee sirdoonka Talyaaniga iyo siyaasiyiinta waaweyn ee danaha kale Soomaaliya. markii dagaalkii Soomaaliya ka qarxay wuxuu gacanta ku dhigay hantidii shirkadaha Talyaaniga ee koonfurta ka qaxay, gaar ahaan kuwii dhisay wadada u dhaxaysa Afgooyo iyo Marka ee loo yaqaanay Salina iyo tii naaxinta xoolaha iyo beeraha ee loo yaqaanay Gisom oo iyaduna ku taalay aagga Afgooyo. sida Serbi uu sheegay, Moroncho waxa uu ahaa nin u qaabilsan logistikada mashruuca Urano qaybta Soomaaliya. waxauna sheegay inay marar badan ku kulmeen dalka Talyaaniga. markii ugu horeysayna waxay ahayd buu yidhi 80-yadii oo aan Milano ku kulannay. wuxuuna warbixin siiyey Darisbada oo uu sheegay inuu jiray jenaraal Soomaali ah oo ahayd in xoogaa laaluusha la siiyo si hawluhu ay u fududaadaan. sidaas la mid ah Serbi wuxuu sheegay inuu mar labaad kula kulmay magaalada Malino 1993 oo ku beegnayd markaas markii Mareykanku ka tarxiilay Soomaaliya. markan oo Moragino aad u cadhaysnaa wuxuuna u hadlay sida nin lagu tacadiyay oo kale ballamihiina looga baxay. wuxuuna Moragino ku adkaysanayay kulankaas inuu mashruuc Urano fuliyay ayna ahayd wixii la isku waafaqay inuu helo. isla kulankaas ayaa ninkii ka socday hay'adda sirdoonka isaguna u caqli celinaya Masar Jirona uu ballan qaaday in iyaguna qaybtooda ka soo bixi doonaan. waxa arrimahan iyaguna aad ugu lug lahaa maafiyada Talyaaniga, gaar ahaan jilbiyada Lemanto iyo Fidanza T oo ahaa laba qabiil oo ka tirsan talweynaha maafiyada Talyaaniga. ugu dambeyntiina Zebri oo ah mid isaguna wax yar ka abaabulay mashaariicdan ayaa wuxuu go'aansaday inuu cadaaladda iyo maxkamadda kala shaqeeyo arrintan. wuxuuna tilmaamay qaar kale oo kamid ah shirkadihii loo adeegsaday fulinta mashruuca Urano sida Biwek oo xarunteedu tahay dalka Liechtenstein isla markaana laamo ku leh Liberia, iyo shirkadaha Instrumag iyo Bidata oo saldhigoodu yahay Switzerland. bishii Agosto iyo September sanadii ama dabshidkii 1992 ayaa xogayaha hay'adda qaranimada midoobay u qaabilsan arrimaha deegaanka ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi, Mr. Mustafa Tolba ayaa waxa uu diray qayladhaan uu kaga digayo shirkado Talyaani ah oo qashin sun ah ku qubaya Soomaaliya. Mr. Mustafa wuxuu ka gaabsaday inuu sheego magacyada shirkadaas isagoo sabab uga dhigay in dad la shaqeeya naftoodu ay halis galayso. wuxuuna u jeeday arrimahan waxaa wata taliska maafiyada oo ah taliska guud ee adduunka. xarumo waaweyn ku leh dalka Talyaaniga. si xilli ku beegan 2000 waxaa suuro gashay in la helo warqadii bayaankii maamulidda hay'adda qaranimada midoobay u qaabilsan deegaanka Dr. Tolba iyo mid isla maalmahaas uu soo saaray xafiisku ee magaalada Nairobi qaybtiisa Information and Public Relations, iyadoo ka kooban warkii iyo wixii uu qoray Dr. Tolba. taariikhdu markay ahayd 9 bishii 1999 ayaa qaybta soo socota u soo bandhigi doona. waxaa xusid mudan in iyaduna Dr. Mustafa Kalma uu dhintay 8 March 2016 eebaa u naxariistay. waxa uu yidhi akhbaar ayaa waxay naga soo gaartay xafiiska yagan kaasoo la xiriirta qashinka iyo sunta halista ku ah Soomaaliya ay ka dambeeyaan shirkado reer Yurub ah. hadda waxaa wada hadal noo socda